ururkan qaad ayaa qabtay kulan lagaga hadlaya xalinta khilaafaadka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin khilaafka soo noqnoqda waxaana ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Laascanood iyadoo dhalinyarada iyo dadkii ka qaybgalaya ay ka sheekeeyeen dhibaatooyinka khilaafka iyo waxa salka u ah waxayna ka hadleen in ay tahay in si weyn ay bulshada uga waantoobaan gacanka hadalka khilaafaadka iyo muranada halkaasi laga sheegay waxaana casharro lagu akhrinayay lagaga hadlay colaadaha iyo dhibaatooyinka ku soo noqnoqonaya gobolka Sool oo ay sheegeen in loo baahan yahay in bulshadu si loo badbaadiyo ay yiraahdeen dadka iyagu maalin kasta dhibaatooyinku ay soo gaadhayaan casharadan ayaa waxay ahaayeen kuwa ay si weyn uga faa'iideysteen ardaydii iyo dhalinyaradii iyo dadkii ka soo qayb galay ururada bulshada qaybaheeda kala duwan gurigaaga markuu ka bilaabmo oo ama adiga waalidka ha noqoto ama adiga walaalka ha noqoto ama adiga xaaskaaga ha noqoto oo usrada hoose ee noloshu ka bilaabanto ilaa top ilaa halka wasaraysa oo markaa dawladda u gaadho sida loo xallo khilaafaadka inaynu wax un ka fahno baan macnaha yahay kulli keenan maanta marka waynu furan doonaa barnaamijka waxaan doonayaa ka qayb qaadasho fiican hablaha wiilasha macallimiinta ururka xubnaha ururka jooga dhammaan inaynu ka wada qayb qaadano sida khilaafaadka loo xallo inaynu macnaha fikir ka wada qaadano oo aynu ka wada discuss karayno baan u baahanahay khilaafku wuxuu noqon karaa land based conflict buu noqon karaa oo mid dhul isku haysto kale uu noqon karaa oo dhul la isku haysto dhulka ayaa isku haysta marka saddex nooc aan u kala qaadno waa marka koowaad ee land based conflictiga jiro maxaa dhihi jiray ma urban land based conflict oo ma dad magaalo degan baa isku haysto maxaa dhihi jiray ma rural urban based conflict oo ma dad reer miyi ah oo dhulkii daaq u ahaa iyo dad reer magaalo doonaya barnaamij tusaalahan ceelalka qodaan si wanaagsan markaan ka nimaadno aynu midow noqono kala dad shaqo isku yimid waxa ilaahay yiri amruhum shura baynahum marka ay isu timaadaan marka khilaaf yimaado isu noqdo iswaraysta marka ka bacdi waxaad ku muranteen iyo waxaad maxaa iska tabanayseen iska waraysto marka sidii la saxan u gorfay arrinka wax badan ka dhihi maayo horta casharka si fiican baan u qaadanay macna leeyahay macalinku casharku inoo soo jeediyay kuwaana qaata waxtarkiisana qaata Allah inaga dhigo aad baan ugu rajoonahay in casharka maanta daraasadda maanta aynu soo ugu dhaqanno hataa hadii wada qaadan kareen in wax ka wada qaadano aad baan ugu mahadcelinayaa haweenka da'da yar la isna gabay qeyraha badan inuu soo jeediyay iyo dhamaan ururka haweenka oo yarada waqtigeena soo siiyay iyo waxa yiraahdo dhamaan ummadda islaamka meesha isugu timi hal socoteen doorashada Mareykanka koonfurta gobolkeena ama waqooyi bari gobolkeena waxa ka jira colaadaha ka jiraana waxa laga yaabaa 1% inayna ka hadlin dhibaatada halka ka jirta guryaha iimaanaysa waxa la sheegay hooyo Soomaaliyeed oo magaaladeena ku nool xaajigeedii iyo iyadu waxay kala yihiin laba fahmi walaalkeed uu dhintay wiilkeedina uu dhintay odaygeediina waa dhaawacmay waxa laga sheegay geel boqolaal halaada oo laba gabdhood uur la wadaan labada gabdhood mid kasta familka kale ka soo jeeda waxaana qaba mid kasta familka kala qaba dadka sidaas ah in maalin kasta ay istilaan oo ay dhintaan abaaru maxay u jiraan abaaru way sii soconayaan haddaan wax laga qaban waa wax ka jira bulshadeena family conflict oo waxaan oran karnaa waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliya ba imka haysta xagga qoysku markuu ka jiro problem aad weyn xaqiiqatan waa waxyaabo bayna oran karnaa aan kuwaana qaadan karno casharkan maanta leeno soo jeediyay aad baad mahadsantiin oo idin mahadnaqayaa dhibaantiin ay u kordhinayso saad ogsoontiin dadku waxay oran jireen cidna uma maqna ceello uma qodna dadka deegaanka ama ka soo jeeda deegaanadan dadka wax magaalada u jooga ama u haya waynaga inaynu taakulayno dhibaatada iyo rafaadka la qaybsano u baxna meelaha deegaanka ee biyo la'aanta ka jirto biyo waxaynu ku taakulayn karno ku taakulayno dadka waxa weeye qoriga wata ee qoriga isu wata qoriga ku neera joojiya hadii aynu ma taqaana isku dayno waynu ka sal gaarana anigu dheerayn ma inahaasan ku soo gabagabeynaya aad nagu gumad weeye gumar xumiyo goob lagu ragmaday galangalkeed weeye gasiinko xumaadiyo hurdada ganaahasin weeye gacalko iswada gooye iyo garasho waa weeye xigtado isku laanta iyo gamiska si weeye Abdikariin Nolol Somali News TV magaalada Laascanood